asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkaeeda kula wadaagna sheekooyin kubadda cagta kuwooda ugu xiisaa badan fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo laagare waana ku mahadsantii wanaagga noo muujisiin ciwaanada kubadda cagta waxay haystaan xulka jarmalka oo gebi ahaanba laga reeba koobka adduunka waxayna ku hareen gruubka ay ku jireen saaxiibada qiimaha badan inkastoo jarmalka 4-2 kaga badiyeen costariga haddana guushaas xawma aysan u tarin sababtoo jabaaniiska waxay garaaceen spain si geesinimo ku dhahan waxay kaga dhigantahay xulka haatan hogaami Hannes Flick laba tartan oo isku xigta ayaa markii ugu horeysay taariikhan group stage ku harayaan jarmalka ciyaarta Costa Rica wajahan Sergio Gnabry hogaan ku dhiibay markii la kala nasr kusoo laabtana Costa Rica waxay la imaadeen laba gool oo mid kamid ah goolashaas waxaa iska dhashay Manuel Neuer balse jarmalka ma aysan niyad jabin ka habarso bedel kusoo gaaray laba jeer shabaq gaaray iyo Thomas Falkirk asigana shabaq gaaray jarmalka inkastoo 4-2 ay ku badiyeen haddana waxay u baahnaan ay ku duceysanayeen intii ciyaarta socotay in Spain gool ay la imaadaan oo barbardhac ka dhigaan kulanka Japan sidaas ayay kusoo bixi kareen balse taasi ma aysan dhicin oo Spain waa laga badiyay waxay qayb ka tahay layaab koobka adduunka jiro Spanish qaybta ciyaarta ay hogaaminayeen ninka lagu magacaabo Alvaro Morata hogaan ku dhiibay kubadu soo karoosay dabcan Spalqueto madax ku wareejiyay sida caadiga laakiin Japanese ma cabsada markii isku soo laabtay comeback-gii lagu sameeyay Jarmalka oo kale ku sameeyeen oo laba gool hal ay kaga badiyeen Don iyo Tanaka ayaana guusha siiyeen Japanese waliba goolka labaad xal loo baaday aalada Farna xaqiijiso waana la xaqiijiyay haddaba guusha Japan ay gaareen waxay ka dhigan tahay gruubkan 6 dhibcood ay yeesheen Jarmalka iyo Spain isku mid noqdeen waxay la imaadeen min 4 dhibcood laakiin Spain waxay ku soo baxeen 7 gool ay ku xaqeen Costa Rica oo 6 gool bannaan ku taalo Jarmalkana 1 gool ayaa bannaan ku yaal halka Costa Rica ku dhameysteen kaalinta afraad maadaama ay la imaadeen 3 dhibcood saddexda kulan ay ciyaareen sidaa darteed saaxiibada qiimaha badan gruubka mar waxaa soo martay oo Jarmalka markii hogaanka laga qabtay sidoo kale Isbaanishka dabcan ay goolal ku lahayn Japan in dabcan ay dhici karta Jarmalka iyo Spain inay guryahooda wada aadi kareen taasoo noqon la yaabkii ugu weyn taariikhda kubadda cagta ka dhaco laba super powers kubadda cagta Jarmal iyo Spain in tartanka laga saaro haddaba la yaab weyn uu dhacay marba haddii Jarmalka gurigooda loo diray laakiin Spain waxay ku fakadeenbo Jarmalka guuleysta awgeed ayay ku baxsadeen saaxiibada qiimaha badan haddaba markii la fiiriyay gruubkan lagu kala baxay sheeka ahaan waxay ka dhigan tahay dabcan haatan wareegga 16aad kulamo xiiso badan ayaa soo socdaan sida officialka ee diiwaan gashan waxaa dabcan haatan isku aadeen Japan oo group kaalinta koowaad kaga soo baxeen waxay qoorta u geli doonaan xul kubadda cagta ee dabcan Croatia ay ku aadeen halka markii la fiiriyo Morocco iyo Spain ay isku aadeen maadaama Moroccanka ay kaalinta koowaad ku soo baxeen waa arrin kale oo xiiso badan Morocco iyo Spain isku aadan iyo sidoo kale dabcan Japan iyo Croatia saaxiibada qiimaha badan Morocco iyo Spain midkii soo baxay wuxuu ku aadi doonaa guuleystaha group H ka soo baxo kaalinta koowaad ka galo waa groupka Portugal ku jiraan iyo sidoo kale dabcan guuleystaha labaad ee group G kaalinta labaad ka galo waa groupka Brazil hogaaminaya saadartee marka afartaas markii la isku dhufto mid kamid ah wuxuu u soo bixi doonaa quarter final saadartee Morocco iyo Spain laba dal xasaasiyad ka dhaxeyso oo isku haystaan dabcan marka la fiiriyo jasiirada iyo xuduudo ka dhaxeeyo ayaa gudaha garoonka iska qaban doonaa kulan nag awde waa ciyaar kale oo xiiso badan haddaan usoo laabno waxyaabihii dabcan ka dhacay ciyaarihii dabcan Spainkii laga badiyay Jarmalkii badiyeen waxaa kamid ah rikoorada Alvaro Morata wuxuu noqday ciyaaraanka labaad ee taariikhan Spain u ciyaaray oo saddexda kulan ee ugu horeysa World Cup ka shabaqa gaaratan iyo Talmazara oo sidaas sameeyay sanadii 1950kii Manuel Neuer kii gurigiisa aadana 19 kulan u ciyaaray koobka adduunka hadda wuxuu toos u noqday taariikhda goolayaha dabcan ugu safashada badan koob adduun wuxuu ka sare maray goolayihii Brazil Claudio Taffarella iyo dabcan goolayihii Jarmalka Sepp Maier ayuu dhaafay kuwaas oo ciyaareen min 18 kulan dhinaca kale Sergio Gnabry saaxiibada qiimaha badan wuxuu Jarmalka u dhashay 21 gool waana goolkiisa ugu horeeyay dabcan uu madax ku dhaliyo sidoo kale dabcan wuxuu noqonaa Jarmalkii ugu horeeyay dabcan koob adduun madax ku dhashay gool tan iyo sanadii 2014 markaasoo dabcan Mats Hummels madax ka dhashay xulka Faransiiska Alvaro Morata asigana waxaa u diiwaan gashan saaxiibada qiimaha badan haatan 9 gool ayuu dhashay markii la isugu daro goolashiisa dabcan qaramada Yurub iyo koobka adduunka laga soo bilaabo tan iyo sanadii 2016 waa Isbaanishka ugu goolasha badan tartamada caalamiga markii la joogo dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan ciyaaryahanka lagu magacaabo Rodri wuxuu sameeyay 115 baas Pau Torres wuxuu sameeyay 109 baas qaybta hore ciyaarta kulankii Spain ee la ciyaareen Japan halka wadarta guud ciyaartoyda Japan baas aan ay sameeyeen 89 baas laakiin baaskaas dabcan waxaa dheheen laqa Japanese oo score sameeyeen sababtoo Japan waxay noqdeen dalkii ugu horeeyay taariikh ahaan kulan koob adduun ciyaaray oo positionka guud kubadda ay haysteen kaliya dabcan 17.7 boqolkiiba 18 boqolkiiba haddana kulankaas guuleysteen weliga maysan dhicin Japan ayaa sameeyeen dhinaca kale Jarmalka waa markii ugu horeysay taariikhan laba kulan oo isku xigtay group stage koob adduun ay ku harayaan sidoo kale waxaa leeyahay sanadii 1998 markii tartan ku cusbaayeen ayay dabcan group ku hareen markaas ka dambeeyay laga soo bilaabo 54 ilaa 2014 16 tartan oo kala duwan Jarmalka waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan group stage ay ka soo baxayeen sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Jarmalka waxay qayb ka noqdeen ayagii
Spain laba xul oo taariikh ahaan 700 baas ay ka badan inta sameeyeen kulan koob adduun laga badiyay waxayna ka sameeyeen Spain iyo Jarmalka inay garaaceen Jabaaniiska inkastoo Japan 700 baas lagu sameeyay labadaas kulan haddana waxaa si kala jecel guusha oo muhiima Jabaaniiska guusha ay gaareen dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waxyaabaha kala soo qaadan karna waxaa qaybka Jamal Musiala wiilkan wuxuu ku sameeyay Costa Rica 12 dribbling ama 12 goysmo waa wiilka dabcan ugu da'da taariikhan 20 sano aan gaarin kulan koob adduun ee hal ciyaar dribbling intaas la eg sameeyo laakiin wiilka uu nasiib dareen sababtoo kulankan kadib laba jeer qoriyo goosha darbad ku dhuftay fursado badan uu sameeyay dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan Japan waxay noqdeen xulka saddexaad taariikh ahaan laba kulan oo kala duwan koob adduun guuleystaan oo qaybtooda ciyaarta hoggaanka inta laga hayo kadibna comeback sameeyay hadda kahor waxaa sidaas sameeyay Brazil 1938 Jarmalkan waxay sameeyeen 1970 dhinaca kale Kai Havertz isagan wuxuu noqday Jarmalkii labaad ee taariikhan kulan koob adduun bedel ku soo galo kadib laba jeer shabaq gaaro Andre Schürrle sameeyay sanadii 2014 wuxuuna ku sameeyay Brazil ayuu ku sameeyay dhinaca kale Jabaaniiska waxaa leeyahay saaxiibada qiimo badan waxa uu diiwaanka saddexda gool ee ugu dambeysay koob adduun ka dhaliyeen waxaa dhaliyeen ciyaartooy bedel ku soo galayeen halka dabcan waxaa leeyahay 20 gool oo ka horeysay World Cup ka dhaliyeen dabcan 3 gool kaliya ciyaartooyda bedel kuma shabaq gaarsiin marka haatan Jabaaniis waxay aad ugu fiicnaadeen ciyaaraha dabcan koobka adduunka bedel ciyaartooy inta ku soo galiyeen kadibna shabaq gaareen sheekada koob adduun lama soo idlaan karo la yaabkii ka dhacay marba haddii dabcan Jarmalka banaanka la dhigay sidoo kale Belgium ay kasii horeen banaanka la dhigay waxay ka dhigantay kubaddana waa la isla bartay tartankaana sida uu ku bilaado waxay u ekeed saaxiibada qiimaha badan wax la yaab leh inay soo socdaan aniga waxaan qabaa aragti ahaan la yaabka kuma ekaan doono caawa kaliya Jarmalkiina hareen iyo Belgium waxaan aaminsanahay dabcan la yaab fara badan ayaa tartankan ka soo socdaan saaxiibada qiimaha badan dhinaca kale sheekooyin kale isla koobka adduunka soo qaadan karna waxaa qaybkeeda Dani Alves ayaa lagu wadaa xulka Brazil inuu hogaamiyo kulanka ugu dambeeya ee Group G ee ciyaari doonaan ciyaarta ay wajahayaan Cameroon kulankan asiga noqon doona saaxiibada qiimaha badan kabtan horena xulka Brazil wuxuu ugu ciyaaray 124 kulankani waa 39 jir hadduu alla idma berita markuu kulankaas ciyaarna wuxuu noqon doonaa taariikhda kabtankii ugu da'da weynaa ee Brazil hogaamin doona ama kulan World Cup ka soo muuqan doona maadaama 39 jir uu yahay uu Brazil hogaamin doono si gaar weli wuxuu noqon doonaa kabtanka ugu da'da weyn ee taariikh ahaan Brazil hogaamin doono Dani Alves wuxuu difaac go'aankii lagu soo waday wuxuu dhahay booskan dabcan liisa wada garabka midowga u qalmay macalin Titan wuxuu dhahay bandhigii ku kalsoonaa sidoo kale ciyaaraankan wuxuu dhahay haddii aan ka tirsanaan lahaa kooxda Barcelona wuxuu dhahay booskayga dood lagama keenin lahayn iyo sababta la iisoo wada laakiin wuxuu leeyahay haatan inaan u ciyaaray kooxda Pumas ayaa keentay dhankaasi Mexico aan joogay in qof kasta dood geliyo ka dhawaajiyo sababta la iisoo waday maadaama Brazil ay soo baxeen Alves wuu iska baashaali doonaa sida hadday u badantay kulankaas dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan ciyaartooyda kale Hakim Ziyad Ashraf Hakim wuxuu leeyahay waxaan ku faani karnaa guusha taariikhiga aan gaarnay maadaama xulka Morocco soo baxeen wareegga 16aad sidoo kalena gruubkooda kaalinta koowaad ay kaga soo baxeen waxay ku aadeen Spain laakiin Ziyad iyo Hakim waxay leeyihiin tartankan waa mid noocaas ah sidoo kale waxay leeyihiin xasuusa qadar aan ka helnay maba hilmaami karno kulankooda ugu dambeeyna 2 gool waxay kaga badiyeen Canada waxaa kaloo lagu xasuustaa kulankii Belgium 2 gool ay kaga badiyeen Morocco iyo ciyaartii Kroaadka ee dabcan taa ka u dhigeen saa darteed mar gruub kaalin koowaad ay kaga soo baxeen cid aaminsanay ma jirto Morocco kaalin koowaad kaga soo baxayso gruub ay ku jireen Belgium iyo dabcan Croatia saa darteed marka Ziyad Hakim wuxuu leeyahay World Cup kan waa no special aad iyo aad aan ugu raaxaysanayna halka dalalka qaarkoodna qaraar u yahay maadaama xilli hore ay hareen laakiin labadan xidig waxay leeyihiin tartankan inaan sii joogno oo sii dagaalano diyaar u nahay sidoo kalena waxay dhahan waan ku faani karnaa waxaan qabsanay laakiin saaxiibada qiimaha badan Kevin De Bruyne World Cup faloob ku noqday waxaa weerar ku qaaday Graham Souness legendiga hore kooxda Liverpool sidoo kale hore kooxda Liverpool macalin ugu soo noqday Souness wuxuu leeyahay De Bruyne tartanka ma uusan rabin waxaa dabcan laga carqaladay ku dhawaajay ama hakad laga galshay Premier League maadaama kooxda Man City bandhig ka sameeyay ku raaxaysanay wuxuu dhahay hal ciyaaro bandhig fiican sameeyay ma jirto dhinaca kalena wuxuu dhahay buuq aan loo baahnayn asiga dhexgaliyo ka dhawaajay qolka labiska Belgium kadib markii uu dhahay ciyaartooyda Belgium gobolkooda uu dhacwa ku waayeele ah oo aan tartankan waxba tareen saa darteed marka Souness wuxuu dhahay De Bruyne wuxuu ahaa shakhsi loo soo diray Belgiumka inuu la gooyo taasaan dhacdo ka dhawaajiyay Kevin De Bruyne haatan wuu iska yaranasan doonaa 3 toddobaad nagu soo foolay kadibna 22 bisha December ku soo laaban doona actionka heerka naadi asigoo kooxiisa Man City uu hogaamin doona kulanka tirsan Carabao Cup oo ay Liverpool wajihi doonaan marka Graham Souness xuleeninkan Premier League Man City ka fikiraya ma ahane Belgium ka siga lagu isma ku ahay guud ahaan barnaamijkan kula wadaagana sheekooyin kubadda cagta kuwada wixii xisaab badan intaasaan ku soo ilinayna fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub halkan subscribe inoo saar waa ku mahadsantihiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu